أنا كهلا يا أفك أورك هوين كجل مدب وحانو همبلينا يا مدحويني أن شرفت له فرماجو إيوه رئيس الوزراء waxaan idin leeyahay hambalyo umada Soomaaliyeed oo dhan intii dhig iyo damiir leh way idin kaga hambalyeysay maxaabiista ay ka soo deyseen xabsiyada waxaan aad uga tiirayoon oo ka calool xumoonay wiilka yiri 26 sano jira markii la xiray hadeerna konton jirana waxaan ahay buu yiri jaahil gablana runtii murug iyo calool xumaan la seexan waayay habeenkaas horta waxaan in leeyahay ilaahay jizadeeda ha idin siiyo hambalyo mar kale umada Soomaaliyeed intii damiir iyo dhiig leh waa idin kaga hambalyeynaysaa waana idin kugu faraxsanahay waana guul idin soo hoyatay oo keensateen midda labaad waxaan idin leenahay annagoo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ku baryayna kuna codsanayna codka gabdhaha galmudug oo ninka baryayna in labada nin oo nooga xiran xaq darada oo ku xiran biljin ku xiran maxamed abdi xasan afweyne iyo tiiceeye in labadaas nin aad noo tixgelisiin oo noo soo daysiin wax badan baan raadinahay noo runtii jeclayn allah ka run sheegay dowladaas runta الله شعبك يا بلشادو ويكروب دقين الله شعبك يا بلشادو ويكروب دقين مدحوا إلى شرفت له وإلهي نوكيني ورد يجي بابا سنام محابيستا كسفري وكيني وغيره هذين كان تلفزيون كاركي وإلى شيدا حرنا إسكابويا يا مركي دتكود يا دلكود يا أركان أنا وحنا قيرنا ولا شيء مركي للسود داي مدحوينها رئيس وزارها وعن كو أقلنا هاي سيدا أي ناقر قبتين وإذا أقلنا هاي هدينا هاي قلب مدوق وعن لنا قعد فرن قلب فرن وجه فرن كسر بواده ولا جينا تيرو تشوف هل كان كحنا هاي إنه نجاحين هاي مدحوينها اللي تي ها حبني يحب يا فوين أو ها ninka agoonta iyo masaakiinta kalkaala halyaayadii noo dhashay oo dhiiga iyo dheexankayga lahaa inay naga xirxiran yihiin haddana aan laabnahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wax noo soo fura dowladda federaalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo ra'iisul wasaaraha aad ayaan inaga soo hambalyeynaa haddii aan nahay gabdhaha galmudug waxaan halkan ka cadaynaynaa oo rabnaa haddaan nahay ururka haweenka galmudug in loo soo daayo tiicay iyo afweyne oo dambi lahayn oo wax cadayna lahayn oo wax la sheeganayo aan lahayn oo muddo ka calaacaynay dhibaatadooda iyo waxooda aan barnaamij badan ku sameynay waxyaalo badan ku sameynay qaladaad cadna lagu haysto oo dambi loo soo taagin cad oo geysteen oo maxkamad lagu soo cadayn maantay anagoo ururka haweenka galmudug ah waxaan halkan iskugu nimiday inaan u hambalyeeyno dowladeena maamulkeena dhammaan gaar ahaan aan meeshan uga hadalno waxa maalin walbeeto dhib ku haystaa ama qaxa ku jira ama ilmaha la wareerayaa waa dumar haweenka Soomaaliyeed dhib kasta asagu u hormaraa waa aad aan uga tiiraanyeysanahay